السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال سيدا لا سوcotaan ba hadaan nahay Soomaalida dalka Mareykanka ku nool maalmihii ugu dambeeyay waxaan soo wajahay xaalad aad iyo aad u culus. xaaladaas oo ah saddex shay oo rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam uu ka hadlay in ay khatar tahay oo ina muhiim tahay in laga badbaado sidaas oo kale toodna wadanka Mareykanka lagu aasaasay. saddexdaas xaalad waxa weeyaan in la badbaadiyo nafta bini'aadanka, in la badbaadiyo maalka bini'aadanka, iyo sidaas oo kale in la badbaadiyo sharafta bini'aadanka. sida la socotaan ba wadanka Mareykanka madaxweynaha wadanka ayaa bilaabay inuu intaba ku xadgudbo qaasatan Soomaalida Mareykanka degan. maadaama sidaas ay tahay maxaan la gudboon waxaan doonayaa marka inaad tafaasiil aan ka hadlo dhibaatada xadka ee la facda. sideedaba waxaa jiro xaalad aad iyo aad u xun oo qofka bini'aadanka markii la doonayo in lagu xadgudbo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo naftiisaba kood hore laga bilaabo. xaalkaas waxaa loo yaqaanaa dehumanization, in qofka bini'aadanka laga saaro bini'aadanimada. markaas waxaa banaanaanayo in qofka bini'aadanka markaas lagu xadgudbo oo la dilo. way dhacdaa meelo badan ay ka dhacdaa. markaad fiirisid wadanka Rwanda xasuuq intuu soo dhicin ka hor waxay yiraahdeen Hutugi dadka Tutsiga waxay ku yiraahdeen waa cockroaches, waa baranbaro. marka qof baranbaro ah way banaan tahay in la dilo. sidaas oo kalantood xasuuqi ka dhacay Gaza dawladda Israa'iil waxay tiri dadka reer Falastiin waa animals. soo marka in animal la dilo waa caadi. waa ogtaa marka xoolaha qalanayna markaan qabna xafladaha haddii neef la qalo wax dhiba kuma taagno. maxaa yeelay bini'aadam maaha in la qalo ama la dilo waa caadi. sidaas oo kale sida la socotaan Soomaaliya markii dagaalada argagixisada ayna weeraraan oo qaarkood la dilo waa aragtaa meedka dhulkooda la soo dhigaa markaas ay dadka fiirsadaan. sababta maxaa weeyaan because waxa loo aqoonsaday inaysan ahayn bini'aadam oo ay ahaayeen dad animal camal oo dadka dilaya. xaaladaas oo kale ayaana lagu sameeyay rabaa wadanka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka markuu dhahayo Soomaalida waa trash ha u malineen inay tahay wax easy ah. wuxuu baraarujinayaa oo sii bandhigayaa in Soomaalida laga saaro bini'aadanimada oo la dilo ama la dhibaateeyo ama maalkooda la qaato. waxa la socotaa markuu hadalkaas yiri waxa soo daba raacay in la soo diro hay'ado waaweyn oo ciidamo ah gobolka Minnesota loo soo diro halka ah Soomaalida ugu badan tahay. weliba isbuucii la soo dhaafayay waxaa la keenay 2,000 iyo ka badan oo askar baa la keenay. waad aragteen qof baa la dilay darteena loo dilo Soomaali haddaan nahay. waad aragteen hantida Soomaalida ayaa lagu xadgudbayaa. waxaa la bilaabay baaritaano xad dhaaf ah. waxaa la bilaabay in la soo diro media oo qashin ah oo dadkay been iyo propaganda ka abuuraysa. walaalayaal xaalka sa u malaynaysiino ma aha waa ka daran yahay. ilaahayna badbaadiyo laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ogaano meesha wax marayaan. hadalka trash is not easy claim ma aha. hadal fudud ma aha. marka maadaama marka nafteena khatar ku sugan tahay oo haddaba naf la dilo darteena loo dilay, maadaama hantideeni la dhibaateynayo, maadaama sharafteena meel looga dhacay, xal maxaa ah marka? xalka waxaa ah in anagoo Soomaali ah aan isku imaano oo waxaan aan meel ugu soo wada jeesano. dhibaatada Soomaaliya haysatay inta badan walaalayaal sida la socotaanba waa qabiil. dadka qabiil bay u kala go'go'san yihiin ama waa firqooyin oo diintiiba wadaade kala duwan laga dhigay. mid waa tabliiq, mid waa muxuu ahaa suufi, mid waa akhwaan, mid waa kida. marka wayna kala go'go'say. sidaas oo kale waxaa jiro hay'ado Soomaali ah oo community sheegto oo isay haysto. marka iyadana dhibaatadeeda ay leedahay. maxaa yeelay meel dadkii ay jiha ay ka qaataan ma jirto, amar ay ka qaataan ma jirto. ayadoo taas aan ka quusanayo marka aan ka qaadanayo dhibaatadana haysatan aysan ahayn mid ku eg city magaalo ku eg ama gobol ku eg ee wadanka dhan Mareykanka uu yahay. sida la socotaa madaxweynihii Mareykanka ayaana soo ataagay. hay'adihii Mareykanka ayaana soo ataageen. gobolka Minnesota maanta waxaa jooga dawladda federaalka madaxda ugu sareysa. waxaa jooga ninka xukumayay border patrolka, waxaa joogta gabadhii xukumaysa homeland security-ga, waxaa jooga hay'ado waaweyn darteena u yimideen inay anagana dhibaateeyaan. marka maxaa xala? xalka waxa weeyaan walaalayaal saddex shay. waa midda koowaad in aan samaysano hay'ad u shaqeyso sida hay'adaha caalamiga oo kaleantood, sida dawlad u shaqeyso. public administration baan u baahanaa.
marka hay-addaas aan asaasno waan idin tafaasiiri doonaa sida u shaqaynaysa iyo sidai waxay ka kooban tahay. waxay qaban doontaa laba howl oo maanta aan uga baahi badannaa wax aanan jirin. waa hawsha koowaad ay qaban doonto waxa weeyaan waxa loo yaqaano public relations iyo hawsha loo yaqaano public affairs. saddexdaba waan ka hadlayaa marka. hay-adda aan dhisanayno waxaan u baahannahay inay ka koobnaato Soomaalida Mareykanka oo dhan inay ka koobnaato. ma aha gobol, ma aha magaalo, Mareykanka oo dhan, maadaama dhibaatadeena ay tahay Mareykanka oo dhan uu nagu dhegan yahay. madaxweynihii Mareykanka naga hadlaya maalin walba, qoladii meegali dhahay ayaa naga hadlaysa, hadalkeena meel kasta la geeyey. maanta qof Mareykanka joogta naga warqabin ma jirto. marka hawsheena way ka weyn tahay Rochester ama Minneapolis ama Minnesota, waa Mareykanka oo dhan weeyaan. marka waxaan u baahannahay hay-ad weyn, ilaah baa weyn oo waxaas oo dhan sida ugu dhaqsiyaha badan wax uga qabatay. hay-addaas waxay ka koobnaan doontaa fikirkeyga iyo aqligeyga iyo cilmigeyga Ingiriiska oo Ilaahay siiyey markaan kaalmaysto. waxay ka koobnaan doontaa laba qayb. qayb loo yaqaano golaha fulinta iyo qayb loo yaqaano golaha wadatashiga. golaha wadatashiga ayaan ku bilaabayaa marka hore. waxaan doonayaa insha allahu tacaala in Soomaalida dadkeeda culamada ah, dadkeeda aqoon-yahanka ah, dadkeeda indheergaradka ah, cuqaasheeda iyo gabdhaheena iyo dhallinyaradeenaba inaan isku imaano Mareykanka oo dhan iskaga imaano sida ugu dhaqsiyaha badan walaalayaal. xaalku xal ma aha oo sahlan. aan iskugu imaano meel oo wufuud aan soo dirano oo aan qabanno shir weyn oo caalami ah. markaan qabanno waxay hay-addaas markay shirto waxay qaban doontaa waxa loo yaqaano golaha fulinta oo administration dhisan oo dadka qualified ah oo Soomaaliya oo aqoon-yahan ah la soo xulo oo hay-addaas ka shaqeeyo. waa hay-ad very important ah. waxay ka saray doontaa waxyaabaha hadda noqosaya qabiilada, hay-adaha kala go'an, communitieska kala jajaban. waa mid weyn oo Soomaaliya oo dhan wax u qaban karta. waa midda madaxweynaha Mareykanka hor istaagi karta governatoriyaasha gobolka, hor istaagi karta hay-adaha waaweyn. waa hay-ad weyn oo caalami ah walaalayaal. waxaan soo propose garanaya maanta very important weeyaan. marka taas hay-addaas maxay qaban doontaa marka? waxay qabanaysaa laba shay sida idin sheegaba. waa public relationka waxa weeyaan waxaan haysato baahi oo saddex shay oo public relationka ku dhex jirto. waa midda koowaad crisis baan haysta. maalinta ka dambaysa wax cusub baan ugu soo furmaya. markii koow waxa la trash baa tihiin, markii labaad waxa la immigrationkeena lagu soo diray ISIS-ka, kii labaad dheekeere iyo balaaya nala soo daba dhigay. waxaana la soo daba dhigay waxa la yiraahdo musuqmaasuq baa tihiin, waxbaa dhacdeen. waxaana la soo daba dhigay haddeertaan ugu dambayso in xawaaladihii Soomaalida loo soo dhigto, in meelaheeni la jabsado. khatara ku sugannaha haddaanan hay-ad weyn oo caalami ah oo wax laga qabataanan helin. marka hay-addaas crisiska ayay waxay ka qabanaysaa waxa loo yaqaano crisis management. waxaana loo wajahayaa si cilmi iyo si caqli iyo si aqooni ku jirto. kow taas ayay qabanaysaa hay-adda la samayn doono. labo waxay hay-adda la samayn doono qaban doontaa oo under public relationka ah waxa loo yaqaano community relations. Soomaali haddaan nahay waxaan ka tirsannahay hay-ado qowmiyado badan oo waddanka Mareykanka ku nool oo ay ugu horeyso refugee dadka ah. waxaan kaalmaysanaynaa qaxootiyada dhan inaan isku keenno Suudaanta, Etoobiyaanka, Carabta kalantood, dadka ajnabiga oo dhan inay nala saftaan. maxaa yeelay haddii aniga nala marsado ayagana waa u dhamaatay. marka waa in aan u sheegnaa inaan ka wada tirsannahay hal meel. sidaasoo kalantood waa inaan aan raadsanaa dadka naga soo horeeyay waddankan oo dhibka aniga haysto kale uu soo gaaray oo ay ka mid yihiin dad cadaan ah sida Irishka oo kalantood. Irishka waa intugeena waxa leenahay walaalayaal dhibka hadda kor waa idin ku dhacay, na kaalmeeyna garab istaaga oo nolodooda oo wax noo qabta. community relations aan sameysanaynaa. waxaan noqonaynaa dad xoog loo baahad leh oo weyn oo meel kasta tagay karo. community relationkaas waxaan noqonaynaa dad oo aan kaligood meel istaagsaneen oo laakiin dad ku xiran oo dhahayo one for all for one. haddii Soomaali la taabto aniga waa nala taabtay, haddii aniga nala taabtana Soomaali waa la taabtay. soo marka waa inaan taasna aan sameynaa. laakiin yaa samey karo waa markaan hay-ad haysano, waa markaan haysano hay-ad weyn oo caalami ah oo waxtar leh. tan saddexaad oo ay sameynayso public relationka waxa weeyaan waxa loo yaqaano reputation management. reputation managementiga sumcadeena ayaa dhulka la galay sida la socotaanba. waxaan u baahanaa inaan soo noqono, waxaan u baahanaa inaan iska kelin gareyno waxyaabaha lagu caayay. waxaan idin waxaad tihiin fraudulent, waxaad tihiin mafia, waxaad tihiin dad xun, waxaad tihiin trash. waa inaan u sheegnaa inaan taas ahayn. waa inaan u sheegnaa inaan dad aqoon-yahan, waa inaan u sheegnaa inaan dad wax kala ah, waa inaan u sheegnaa inaan dad wax karti leh,
وإن أشجنا إن أنا هذا أقول يهنا أو واحترق مريكا يأدونك واحترق لكن سي شيء كرنا ما ريجستر مقالة هذا عندنا وكانت هذه كرتو من الصوت هذه كرتو مركو بروبلم كانوا يا مريكا كلن ما حيل نبكي وحكي الصعداء أو هاي وحكي الصعداء واشنطن سياتل وحكي الصعداء ما رولبو مركو وإن هلنا هي أدوين عالمية وتاس وأندر بابليك ريليشن هي أدى وحي قبضون أو كلامتود وحويان وحلو يقانا بابليك أفيرس أو قيب دون قيب كلامتود أو وحوين لقى قبان كرو كو وحان أباهنا إنان برانو هرتر وحيابها civil liberties كهوان لنا أو كمتا حقوقها هنا بين أدنمو constitution كحقوق دان كلنا waxyaabaha dhan oo libertieska oo dadka muwaadiniinta ay leeyihiin waa inaan helnaa sidaas oo kalantood waa in aan baranaa haddana waxa loo yaqaano civil rights movement waa inaan sameynaa waa inaan xuquuqda aan leenahay aan u doodnaa sidaa la socotaa dalka Mareykanka dadka madowga dhibaato badan baa la gaarsiiyey ayadoo ay jirto civil liberties ayaa la gumaadi jiray until ay bilaabeen ilaa ay bilaabeen inay bilaabaan civil movement oo diidaan waxyaabaha xuquuq oo lagu xadgudbay waxa kamid ah inaan sameeyno boycotting waxa kamid ah inaan sameeyno muxuu ahay ka qayb galno mudaharaadyada inaan sameeyno petition waxa la yiraahdo aan warqado qorno waaweyn badan anagoo laakiin isku duuban oo Soomaalida Mareykanka oo dhan ah inaan warqadahaas aan qorno inaan tagno inaan muxuu ahay aan mudaharaad sameeyno inaan debate sameeyno oo aan sameeyno koox debate noo sameeyso inaan sameeyno public speaking oo dad waaweyn oo noo hadla aan sameeyno laakiin ku salaysan aqli iyo aqoon iyo wada tashi iyo wada jir ku dhisan tan ugu dambayso waxaan sameeyay wax loo yaqaan government relations dawladda naftarkeeda waa inaan la sameeynaa relation madaxweynaha ugu horeeyo sida la socotaan maayarka magaalada New York Mamdani iyo madaxweynaha Trump way isgaleen laakiin Mamdani wuxuu u tagay madaxweynaha wuxuu ku yiri maxay u haysataa anigana maxaa ma sameeyna sidaas laakiin goormaan sameey karnaa waa markaan isku duubanahay way adweyn aan haysano walaalayaal waa inaan madaxweyne Trump aan u tagnaa oo aan la fadhiisanaa oo aan dhahnaa war maxaad ugu haysataan Soomaaliya hadana maxaan ka galabsan minority baan nahay wadankan waa deganahay refugee baan adigana keenay wadankan Mareykanka aniga haddaan refugee nahay ayagana keeneen ticketkeena ayaga soo dhiibeen ilaa markii dambe aan u celinay xuquuq baa wadankan ku leenahay ma aha inaan gagabanina cararna maaha waa inaan madaxweynaha u sheegnaa waa inaan senatorada aan u fadhiisanaa waa inaan senatka iyo congresska aan u tagnaa Mareykanka oo aan dhahnaa war maxaa naga qaldan maxaa sameeyna maxaa saxnaa waa inaan wada hadal sameynaa laakiin goorma sameey karnaa ma community yar baa sameey karto ma qolo yar oo Minnesota joogta sameey karto maya waa inay Mareykanka oo dhan Soomaaliya joogto ay wada tashataa walaalayaal oo hay'ad caalami ah sameeysanaa waxaan kaloo sameynaynaa dacwo weyn baan gudbinaynaa Supreme Court baan tageynaa waxaan sameynaynaa dacwo weyn waxaan tageynaa Congresska waxaan tageynaa governatoriyaasha waxaan tageynaa meeyarada waxaa mahad leh meeyarka magaalada Minneapolis iyo kan aan tageynaa magaalada Rochester iyo governatorahaba inay garab istaageen laakiin waa inaan intaas aan ka weynaanaa waa inaan intaas aan ka weynaanaa hay'ad weyn oo caalami ah ayaan u baahnaa walaalayaal sida ujeedo baahida waa balaarinta laakiin hay'adaas weyn waxay ku dhismi kartaa koodi hore inaan wada tashi sameysano anagoo reer Mareykan ah kadibna insha Allah taala aan sameeyno golaha fulinta oo cilmi iyo aqoon ku dhisan waliba waa hay'ad garisanayna waxaan xulanaynaa dadka ugu fiican Soomaalida ee aqoonta iyo kartida leh ee hogaamin kara waxa inta sidin kugu daraya lacagta ku bixi doonta qarashkana jeebkeena ka bixinayna anaga Soomaaliya ayaa iska aruurinayna ama GoFundMe aan sameeyno ama banki aan sameeyno ama waxaan doono aan ku helnay waa ina anaga ismaal gelinaa maxaa yeelay hadartan fiiriya hadii loo soo bandhigtay muxuu ahaa dheekarkaaga ama maqaayadaada loo soo bandhigtay ama xawaaladaada loo soo bandhigtay amba loo soo bandhigtay Uberka aad wadaysay maxaa marka Britool hadii lagu xiro lagu xabisa ma lagu dilo maxaa maalku ku taraya waa ina had ismaal gelinaa waa ina aniga ismaal gelinaa waxa aan sheegaa walaal aniga nagu ma eko hadda la socotaan ba hay'adda qowmiyadda Jewishka loo yaqaan Mareykanka degan waxay qabaan hay'ad weyn oo caalami ah oo loo yaqaan AIPAC AIPAC ayaa difaacda AIPAC ayaa danahooda ka shaqeysa ma aha yahuudda degan New York ama degan Minneapolis ama degan muxuu ahaa Boston inay kaliya ay gooni yihiin ma aha waa hay'ad weyn oo Mareykanka ka dhisan waa American Israeli Public Affairs Committee loo yaqaan AIPAC baa loo soo gaabiyaa waxaan u baahanaa waa hay'ad noocaas oo kala ah dadka madowga Mareykanka degan hay'ad weyn bay qabaan oo weyn oo xuquuqdooda u doodo marka walaalayaal xuquuq marka hay'adaas markaan sameysano sida uu dhaqsiyaha badan oo laba ka kooban golaha
golaha wada tashiga oo odayaal iyo dhaqan iyo culamaa udiin iyo qof kastoo Soomaaliya ku jirto iyo golo oo fulina oo public administration ah oo sidii hay'adaha caalamiga u shaqeynayso oo sida nidaam system u shaqeynayso oo aniga aan fangiri aan maalgelinayno waa inaan isticmaalno walaalayaal waa muhiim inaan isticmaalno maskaxdeena iyo maalkeena iyo muruqeena haddaad ku tashatid waxyaabo kale intaad waa ku dhamaatay ma aha in wadooyinka nagu raacdaysto inaan kala go'go'anaha ma aha inaan kala qabiilnaha ma aha hal xababaynaha walaalayaal marka hadda aniga cawada meeshaan uma fadhiyo maanta inaan muxuu ahaay aan kaliya tala soo jeediyo waxaan meeshaan u fadhiyaa inaan sidaas oo kale aan ka hadlo sidii hay'adan loo asaasi lahayd magacayga waa Mahad Cali Abuukar walaalayaal dadkaan garanayn waxaan ahay macallin wax ka dhiga dalka Mareykanka sidaas oo kale toodna waxaan ka hadlay aqoon baan u leeyahay siyaasadda waa takhasuskayga waxaan ka baxay jaamacadda University of Arizona qaybteeda siyaasadda qaybteeda siyaasadda School of Government and Public Policy ayaan ka baxay waxaan sidaas oo kale tood aan ka soo shaqeeyay hay'ad hadda aan idin sheegaa si loo dhisi lahaa magaalada Ankara ee dalka caasimadda dalka Turkiga sidaan oo kale ayaa hadda kor ka dhacday Soomaalidii ayaa la isku keenay waxaan aan ka hadlay waa wax soo dhacay waa waxa aniga qayb ka ahay waa waxa aniga hogaaminay magaalada Ankara waa la tagi karaa waa la soo weydii karaa maamulkeeda Soomaalida baa isku timid oo qof kasta leh Soomaali ka timid Muqdisho ka timid Puntland ka timid muxuu ahaay Somaliland Hargeysa ka timid Baydhabo ka timid Kismaayo ka timid meel kasta ka timid isku timid waan shirnay waxaan ogaanay inuu dhibnahayo waxaan aasaasnay hay'ad oo ka kooban labada golo golaha fulinta iyo golaha wada tashiga alxamdulillah rabbil caalamiin successful bay noqotay waxaana sharafi karaamiyad inuu ilaahay waafajiyay inaan u noqdo hogaamiyahoodii aan ka soo shaqeeyay oo kadibna ay doorasho dhacday oo qof Soomaali lagu doortay oo si wanaagsan walaalahii Soomaali isku wada yimideen walaalayaal waa very important sidee markaan u aasaasnay hay'adan aniga mahada waxaan deganaa hadda gobolka Minnesota magaalada Rochester maadaama Rochester aan deganaa waxaan marka hore aan casuumaya Soomaalida reer Rochester ma aha xalkan xal loo kala hari kara walaalayaal waa inay isku yimaadaan Soomaalida oo dhan qaasatan dadka danta leh dadka maqaayadaha leh dadka dukaamada xalaasha leh dadka xawaaladaha leh dadka hay'adaha leh dadka iskuulada leh dadka daykeerada leh waalidiinta iyo dhalinyarada waa inaan isku imaanaa walaalayaal ma aha xalka mar loo kala meel loo kala haro dadka qaar ba markii meel la iskugu waca ka babaqdo baaqasho waa dhamatay markaan haddii walaalka jidka lagu qabsanayo haddaa tahay takhtar ama engineer amba aad tahay qof isla weyn aniga ma dhahay waa qof xun baa tahay laakiin gabadhaadii baa jidka mari karin beritoole maxaa yeele hadda waxaan aragnay gabdho Soomaali oo la caynayo oo nin madow oo Afrikaan ah oo caynayo waxaan aragnay wiilasha Soomaalida ee wadooyinka lagu qabsanayo wiil Soomaali muwaadin citizen ah ayaa afka dhulka loo dhigaa qoorta laga ciijiyay waxaan aragnay congresswoman Ilhaan Cumar cunugeeda oo la qabsaday oo la weydiinaa sharciga waxaan aragnay magaalada Rochester maanta walaalkeen qadar oo lagu dhagay oo la weydiiyay citizenship oo xogaa la jukiyay walaalayaal saan ma aha xaq iyo caqli waa inaan isku imaanaa waa inaan ka wada tashanaa aqoon-yahankeena waalidiinteena culummadeena siyaasiyiinteena reer Rochester waa inaan isku imaanaa insha Allah taala markaan isku imaano waxaan casuumeynaa Mareykanka oo dhan magaalada Rochester aan ku casuumeynaa hay'adda meesha ka bilaaban doonta meeshan weeyaan hadduu Ilaahay idmo waa inaan isku imaanaa waa inaan fundraising sameynaa waa inaan Soomaali martaqaadnaa waa inaan isku keenaa meeshan kadibna hay'adda aan sheegay meeshan laga asaaso hadduu Ilaahay idmo haddaan nahay reer Rochester alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan dad wanaagsan oo isku dhagan laakiin waa inaan intaas ka sii wanaagsanaa waa inaan Soomaali gugul fidinaa Soomaalida Mareykanka degan insha Allah taala walaalayaal waxaan idinka codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ina warkaygan aad u dhageysataan casuumaadda aan idin fiday reer Rochester daatiina aad qabataan kadibna markaan isku imaano annaga meeshan hadda aan fadhiyo maalinta ku xigto oo aan qaban doono noocaan oo kale waraysi ah amba bandhigida ina garbeyga joogi doontaan oo Soomaalida Mareykanka joogto aan martaqaadayno insha Allah taala kadibna shirka weyn iyo wada tashiga iyo golaha fulinta aan qabano sida ugu dhaqsiyaha badan walaalayaal digniin haddaan waxaan idin sheega aadan qaban maxaa dhici doono waxaan sugaynaa in la laayo waxaan sugaynaa in hantideena la dhaco waxaan sugaynaa in sharafteena meel looga sii dhaco wallaahi aan ku dhaartay ma aha nin iska hadlayna ah
waxaan ku hadlayo waa wax iga dhiirjinayo waa wax iga xanaajinayo waa wax aanan ku faraxsanayn codsi fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan casuumadeeda ha loo aqbalo waxaan soo gudbi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan meesha wax lagu qaban doono goorta la qaban doono iyo saacadda la qaban doono insha allahu tacaala aad iyo aad aan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Somali Rochester Media.